haamaha kaydka shidaalka ee magaalada Berbera oo maanta ay ahayd in ay la wareegto xukuumadda Somaliland ayaa kulan dheer oo dhex maray xubno kamida gudidii maamuli jirtay haamaha kaydka shidaalka ee magaalada Berbera iyo xubno iskugu jira golaha wasiirada maamulka gobolka Saaxil hanti dhowraha guud mareeyaha dekedaha Somaliland kuna yeesheen howlka shirarka ee haamaha kaydka shidaalka ee magaalada Berbera isla markaasina ay warbaahintu dibad joog ka ahayd kulankaasi ayaa markii uu soo idlaaday waxa warbaahintu wax ka weydiisay xil wareejintii maanta loo ballansanaa iyo sida ay wax u jiraan waxaana hadallo isburinaya ku hadlay mas'uuliyiintii goobtaasi ka soo baxay halka ay qaar sheegeen in lala wareegay wasiirka maaliyadduna sheegay isla markaasina uu dhayda ka cadeeyay in maalinta bariya ay la wareegi doonaan hadalladoodina waxa ka mid ahaa sida madaxweynuhu amray la wareejino waa la wareejinaya la wareegay dooduna la wareegtay waxay wareejin bal sugay maxaa dhacay ma dhicin tawa loo diyaar wareejin ma meesha u timaadeen lagu waran maxaa dib uga maanta بريتول laga dhigay hadaa la yiraahdo wayna bari baa ku sababtoo noo sheegay tamaanta dib ugu dhacday hawsha loo dhamaato waa hawl farsamo oo tigni isku soo wado duuba waxa xusid mudan in aanay badiba joogin shirkadihii iyo maamulkoodii gacanta ku hayay waqtigan haamaha kaydka shidaalka ee magaalada Berbera isla markaasina ahaa shirkadihii ku midoobay Cabdiraxmaan Maxamed Cige telefishinka caalamiga Sab TV haamaha kaydka shidaalka ee magaalada Berbera